xilligan aynu ku jirno saddex baa mudan in laga feejignaado xogtay sheegayaan waayo waxaynu galnay xilli xogta laga ganacsado informationka waxaa loo yaqaanaa xogta laga ganacsado loo isticmaalo dadka in la isku diro dadka in lagu kala qaybiyo dadka in lagu dhaawaco midnimadooda iyo sahaanshahooda saddexdaas maxay yihiin waa kooxda ay koox kale is hayaan cid ay cid kale is hayaan labada koox dhinaciis haya ama dagaal ha ka dhaxeeyo ama arrin xasaasi ah isku haystaan waxay adeegsadaan propaganda fara badan oo ay doonayaan dadka inay kaga dhaadhiciyaan isku xayisiiyaan cidda labaadna waa maxay kooxda labaadna waa maxay waa dadka ka ganacsada xogaha baraha bulshada aad ugu badan yihiin wax isticmaalaan xoga been abuura ama fake news si ay dadka u helaan dad badan oo daawada lacagna uga sameeyaan waxa soo raaca oo saddexaada qof la isticmaalayo oo baahiyo xog loo soo dhiibay xog loo